mid ka mid ah beelaha dega gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta nabadoon waxa ay ku duubteen magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle iyadoona nabadoonka la sheegay inuu bedelayo nabadoon horey ugu geeriyooday beesha isla markaana maanta ay ku calaamad saarteen magaalada Jowhar. Calaamad saarka maanta beeshan ay sameysatay ayaa ahaa mid ka duwan calaamad saaradii ay sameysan jireen beelaha ku dhaqan gobolkan Shabeellaha Dhexe. Waxaa nabadoonka lagu soo wareejiyay 4 xaafadood ay ka kooban tahay magaalada iyadoona ay isugu soo baxeen bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Jowhar. Calaamad saarka nabadoonka qaabka ay u dhacday calaamad saarka nabadoonkan cusub ayaa ahayd mid ka duwan calaamad saarkii hore ay u sameysan jireen beelaha ku dhaqan gobolkan Shabeellaha Dhexe. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani TV-ga Kalsan, magaalada Jowhar.